madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa ra'iisul wasaare u magacaabay Xamse Cabdi Barre oo ah xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka xubinna ka ah xisbiga madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu in muddo ka baaraandegayay xulashada qofka noqon doona ra'iisul wasaaraha, isla markaana uu u arkayay inuu Xamse yahay shakhsi ka soo bixi kara hawshan. Xamse oo hadlay kadib magacaabistiisa ayaa sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad u qalanta inay dalka samata bixiso, kana shaqayso hadafka ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah. Haddaba waa kuma ra'iisul wasaaraha cusub. Xamse Cabdi Barre waxa uu ku dhashay magaalada Kismaayo, gobolka Jubbada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya horraantii 1970kii. Waxbarashadiisa asaasiga dugsiga hoose dhexe iyo sare waxa uu ku qaatay gudaha dalka. Jaamacadda heerka koowaad waxa uu ku soo dhigtay waddanka Yemen, halka shahaadada heerka labaad uu ku soo qaatay jaamacad ku taala dalka Maleeshiya. Hadda waa xildhibaan Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo laga soo doortay Jubbaland. Wuxuu xubin ka yahay xisbiga nabadda iyo horumarinta ee uu hoggaanka u yahay madaxweyne Xasan Sheekh, kaasoo horey uga soo noqday xoghaye. Inkastoo uu shaqooyin kala duwan ka soo qabtay xafiisyada dowladda federaalka ee Soomaaliya, magaciisa waxa uu si weyn u soo shaac-baxay markii uu noqday guddoomiyihii guddiga doorashada ee Jubbaland intii u dhaxaysay 2019 ilaa 2020. 2014 ilaa 2015 waxa uu la taliyaha dhinaca maamulka u ahaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho ee xilligaas Xasan Maxamed Xuseen Muungaab. Howlaha kale ee uu Xamse soo qabtay waxaa ka mid ah in uu la taliye sare ka soo noqday wasaaradda arrimaha dastuurka iyo federaalka,